halkani waa Gari Global Network. maanta waxaan idin haynaa ka jawaabista Dr. Sadiq Eno oo taariikh been abuura ka qoray jabhadda Soomaali Abo iyo dadkii hogaamin jiray jabhaddaasi. jawaabtu waa sida tan, dhageysi wacan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. talaan kadib waxaan idin leeyahay taariikhda beenta ah oo la soo qoro waxay waxyeeleynaysaa ama raad xun oo saameyn leh ku yeelanaysa ciddii aqoon-yaan isku sheegta oo taariikhdaas beenta ah oo sal iyo raad lahayn soo diyaarisa ayay sharaftooda iyo aqoontoodana waxyeeleynaysa. jabhaddii Soomaali Abo yay ahaayeen. halkan kaga bogo ku soo dhawow mawduuceena maanta. haddii ay beedmo aasaaskii jabhadda Soomaali Abo September 1976 ilaa June 1977 in badan oo kamid ah dhulkii ay ku noolaayeen oromada ku dhaqan Baali iyo Sidaamo waxaa la raaciyay xadkii Soomaali galbeed, laakiin dawladdii kacaanka ahayd ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre lama aanay daahin in dadkaasi oromada ah ay u dhisto jabhad gobonimo doon ah iyo golo siyaasadeed oo iyaga u gaar ah. jabhadda oromadu 6 bilood oo qura ayay ka dambeysay dhismihii iyo yagleelidii jabhaddii kale ee Soomaali galbeed. oromada ku dhaqan labada gobol waxay yihiin Arusha, Booran iyo Guji. saddexdaas beelood waa walaalo, laakiin xiriirka ay Soomaalida leeyihiin ayaa wuxuu yahay mid aan isku mid ahayn. taariikhdan ninkan Dr. Sadiq Eno isku sheegaya uu soo diyaariyay oo na ka soo diyaariyay dadka ama ummadda soo halgami jirtay oo Soomaali Abo ah waa waxaan waxbana ka jirin 90% oo sal iyo raad lahayn ayuu soo diyaariyay. maxaa yeelay haddaan diiwaankan oo taariikh ahaan la soo akhriyay qaladaadkiisa tusaale ahaan wax yar idinka tuso. diiwaankan wuxuu oranayaa asaaskii jabhadda Soomaali Abo la oran jiray wuxuu ka soo qaataa 76 ilaa 77. jabhaddaasi waa ka facweyn tahay waqtigaas. jabhaddan Soomaali Abo la oran jiray asaaskeed waxaa la soo asaasay bilowgii 60meeyada ayaa Ali Gabaaba soo asaasay. waxayna soo martay marxalado kala duwan iyo magacyo kala duwan ayay soo martay. magacan Soomaali Abo la oran jiray waa magacyadii ay soo martay mid ka mid ah uu yahay. gudaha Soomaali ayay saldhig ku leedahay 70 iska daayo waxay saldhig ku leedahay 60meeyadii. 60meeyadina way soo dagaalami jireen. dawladdii kacaankana way ka horeysay halgankooda iyo asaaskoodaba. jabhaddii Soomaali galbeed waxaa adkaatay in la helo odayaal Soomaaliyeed oo lagala tashado jabhad loo dhiso gobolada koonfurta Itoobiya. sidaa darteed madaxdii dawladdii kacaanku waxay baadigoob u gashay in ay soo ururiso rag lagu hirto oo ka qayb qaata dhismaha urur siyaasadeed. Abdullaahi Xasan Maxamuud gudoomiyihii jabhadda Soomaali galbeed xilkaas la saaray. Soomaalidu waxay markaas adeegsadeen rag u shaqeynayay dawladdii Soomaaliyeed isla markaana u dhashay beelaha ku nool koonfurta Itoobiya. raggaas ayaa waxay abuureen xiriir dhexmara madaxdii Soomaalida iyo oday dhaqameedyadii beelahaasi. dibadeed si Dhoomaaleysi ah ayaa odayaashii xuduudda looga soo tallaabshay oo xamar lagu keenay. ragga xamar yimid waxaa ka mid ahaa ugaaska beesha Gariire Xanaasuuban Dhagoole, ugaaska beesha Awliyahan Faatulle Dhaqane Baylah iyo ugaaska beesha Garre Xasan Goorow. raggaas ayaa mid walba lala kulansiiyay hogaamiyihii Soomaaliya General Maxamed Siyaad Barre. isagu wuxuu ka dhigay in dawladdii kacaanka oo soo asaastay qaladaadkiisa labaadna Soomaali galbeed iyo Soomaali Abo jabhaddii la oran jiray isagu wuxuu ka dhigay wax Soomaali galbeed qofkii Soomaali galbeed madax ka ahaa oo soo aruuriyay. ma aha sidaasna. waa laba urur ah oo isbarbar dagaalami jiray weeye. wax shuqul isku leena ma aha asaaskooda. qolo kasta meeshooda ayay dhilki jira iyo dhibaatadii jirta damqisay oo dagaalka ka bilowday mooye wax qolo soo aruurisay oo Maxamed Siyaad u geysay maba jirto. taasna waa diiwaanka been laga sheegay weeye. tan kalena wuxuu yiri asida garahu ka hadlay wuxuu yiri ugaas Sangooro. Sangooro waa halgamaha weeye oo la yaqaano, laakiin se ugaaska garaha ma aha. qof ugaas ahaan oo la soo qaadana ma aha. gudaha Itoobiyana lagama soo qaadin. sidaa dartii iyo waxyaabo fara badan oo qaladaad fara badan oon halka lagu soo koobi karin
ayaa diiwaankan ka muuqda. sidaa darteed qofkii diiwaankan soo diyaariyey waa inuu dib isu noqdaa oo issaxa. sidaa awgii tala baxiya apologize, maxaa yeelay ummadda dhan ayuu ka qoray taariikhdooda been ama waxaan jirin oo sal iyo raad lahayn. وسؤال تأويني دلك يا إسكالي وسؤال تأويني دلك يا إسكالي كتاع الدوار